geeljiraha badar ma cuno. Sidee ayuu ku aqoonsadaa qofka geeljiraha geeliisa raadka geelika asuu kaga aqoonsan karaa mina? Qofka geela xanaanaya subaxii markuu soo kaco muxuu sameeyaa? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ahay Mr. Kilimatani. Haddii markaa kugu horeyso aadna soo booqato waad ku mahadsan tahay booqashada customerkii haddaad tahayna waad ku mahadsan tahay la joogitaanka. Fadlan YouTube-ka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sina share garay. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Maanta hadduu Ilaahay na gaarsiiyo uu naftan ugu simo waxaan samayn doonaa insha Allahu sheekooyin taxana ah oo ka hadlaya nolosha bini'aadanka, sida nolosha geeleyda, nolosha arileyda, nolosha lo'da, sida bajaajta, caasileyda, nolosha ay nooc Soomaalida waxa ay ku nooshahay waxyaabaha ugu muhiimsan ama ugu badan in laga sheekeeyo u baahan, oo taariikh in laga qoro u baahan, oo history in laga sameeyo u baahan, oo in sheekooyin musalsal oo taxanaha in laga sameeyo u baahan ayaanu taxana ka samayn doonaa. Waxaan noqon doonaa qofkii ugu horeeya Soomaaliya nolosha Soomaalida ay u badan tahay ama sida ay u isticmaasho taxana ka sameeya. YouTube-ka hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxaas iyo waxyaabahaas wax la mid aan kusoo gudbin doonaa. Fadlan subscribe noo saar sina share garay. Aan u gudagalno hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxaan u gudagalaynaa ka sheekeynta geeleyda iyo sida ay u nool yihiin iyo geela waxyaabaha laga baran karo. Ha ku socon. Qodobka koowaad, qofka geela xanaanaya subaxii markuu soo kaco muxuu sameeyaa? Tusaale ahaan wuxuu sameeyaa subaxii markuu soo kaco geelii uu dhex galaa. Geela wax ku soo kordhay, haddii ay wax xanuunsan yihiin, haddii ay wax dhaleen, haddii xalay libaax iyo dhibaato kale ay soo korortay, waxaasuu kormeeraa. Jawiga markuu qiimeeyo wax walba ay safe noqdaan kabacdii wuxuu sameeyaa geel inuu ooda ka qaado xerada eridaas in 5 xabo iyo 6 xabana ay iska daaqdaaqaan, kuwa kalena iska fadhiyaan. Ma fahanteen shaxda? Shaxda ma fahanteen? Sida aad taqaaniin geeleyda markaa meelaha aad ku booqato 5 xaban gudahay ku jirtaa, 10 xaban waxaa waaye erida meesha moorada ama xerada geelu uu ku oodan yahay eridaasay daaqdaaqaan si caanihii iyo xiskinkii iyo wixii ay u sameeyaan. Kabacdi wuxuu sameeyaa caanihii iyo wixii uu ka lisaayo uu ka lisaa, danihiisa uu ka dhamaysanaa. Kabacdi wuxuu isku dayaa in uu geelu uu foofiyo ama uu daaqsiin uu geeyo. Qodobka labaad, qofka geeleyda ama geela xanaanayo wuxuu ka fikiraa intuusan ooda ka qaadin ka hor, wuxuu ka fikiraa saaka halka uu u daaqsin tagi lahaa ama uu u foofin lahaa. Tusaale ahaan meel biyo leh oo nur fiican leh oo geelan biyo uu ka heli karo, oo nolol uu ka heli karo, oo coos uu ka heli karo, oo meel jawi degana uu wax ka cuni karo ayuu ka fikiraa. Kabacdina qorshihiisa number 1 waxaa waaye in subaxaas meeshaas uu u foofiyo ama uu u daaqsin tagiyo. Okay, qodobka labaad si fiican. Qodobka saddexaad waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan geeli waa la foofiyey, duurka ayuu aaday. Qofka geeljiraha muxuu sameeyaa? Wuxuu sameeyaa geela ayuu aad u kontaroolaa waxa soo galay geela dhexdiisa. Haddii raad qof raga uu soo galay, raad qof dumar hadduu soo galay, libaax hadduu soo galay, haddii uu dhurwaay uu soo dhex galay, geela haddii wax ka maqan yihiin oo 1 ama 2 ay maqan yihiin oo ay lunsan yihiin, waxyaabahaas uu ka fikiraa oo geeli saas u kontaroolaa. Geeli intuu geesuu tagaa, kabacdi geeskaasuu tagaa, kabacdi geeskaasuu sii tagaa. 9 ilaa 6 saac duhurnimo laga gaarayo geela dhexdiisuu ku dhex wareegaa, saas uu wareeg marna ma fadhiisanayo. adoo waxaa iska arkaysa iska socdo oo xoolo iyo wax kale iska raadinaya oo qof geele uu kula taagay. Xitaa ma kuu sheegaya ku dhihi maayo oo aniga waa geele ahay ama geelana aniga awaardiino ku dhahay. Asoo kula taagan baa arkay inta fiirinayo saan ku leeyahay arkayno. Anaa yaaba, waa yaaba. Qodobka afraad waxaan ka dhigaynaa sida aad la socotaan geeljiraha muxuu cunaa horta geela. Qofka geelan baadiyahan uu ku jiraa, xaas ma lahan, hooyo uma joogto, duurkaas uu iskaga jiraa. Horta geeljiraha yaa wax siiya, asmaa wax karsado, badar intuu ka keenaa. Horta muxuu sameeyaa? Qodobka farkaad ka dhigaynaa.
boqolkiiba 95 sida la og yahay geeljiraha badar ma cuno. Geeljiraha wuxuu cunaa caanaha geeliisa uu ka lisay ama uu ka soo maashay. Waxaa u taqaanid boqolkiiba 95 sida la og yahay geeljiraha badar ma cuno. Haddii uu helan wuu cunaa, laakiin maba helo badanaa. Tusaale waxaad arkaysaa nin geeljiraha 3 qof ama 2 qof waxaad arkaysaa duurka intaasoo baalkiya oo iskaga dhex jiro oo keynta ku jiro oo meelahan bini'aadankaba joogin geel ku xanaanaynayo oo jawidiga iska jiro. boqolkiiba 95 sida la og yahay geeljiraha wuxuu cunaa quraacda iyo qadada iyo cashada wuxuu cunaa caanaha geela uu ka liso. wax kale ma cuno. quraac, qada, casho, caanihiisa iska cunaa tartiibkiisa. waa taagan yahay hawshiisa iska wataan. wax kale ma cuno. 4 waa isla garan. qodobka 5 hadduu ilaanigaas waxaan ka dhigaynaa subaxii geela markuu foofo imisa kilomitir ayuu u daaqsin tagaa ama uu u foofaa ama uu socon karaa. sida normalka la sheego subaxii markii halkan uu ka baxo ugu yaraan 10 kilomitir uu u daaqsin tagaa minaha 10 kilomitir wuu soconaa. saasuu u soconaa subaxii markuu 12 saac subaxnimo markuu baxo ilaa iyo wuxuu soconaa 7 saac uu soconaa 7 saac ilaa laga gaaro wuu soconaa hore uu sii soconaa asagoo daaqayo uu soconaa minaha wuu daaqaa wuu isboojeenaa ugu yaraan 10 kilomitir wuu gaaray 5 kilomitir 8 kilomitir ilaa iyo wuxuu u dhexeeya 10 kilomitir meesha ugu badan intaasoo minaha uu badanaa uu aadaa ama u daaqsin tagaa. waxaa kuu saaray goormaa lasoo gediyaa marka waxaa lasoo gediyaa 7 saac markii la gaaro geela waa lasoo gediyaa. qofkii baadiye ama kusoo kale waa uu fahmi karaa. waa lasoo gediyaa geela si uu minaha 7 saac 7 kale uu u imaado halkii lagu xareynayo ama moorihiis ay ahayd ama meesha isaga garaashkiisa ama meesha lagu xareynayo baakinkiisa ay si uu imaado 7 saac lasoo gedinaa. haddana 7 saac muxuu samaynaa haddana wuu soo daaqaa kabacdi hal saac fiidnimo wuxuu imaanaa halkii lagu xareynayo. kabacdi de waan xareynaa waa la tirinaa. markii la tiriyo nirgihii ama ilmihiiyaa laga saaraa meel gooniyaa la gelinaa. kabacdi wixii la soo oodaa dab iyo waxbay shishitaan geeljirayaasha dab iyo waxbay shishitaan oo geela ay ku waardiiyaan habeenkii iyagana dhaxanta ay kaga dugsadaan ay sameeyaan moorada geeskeedu ka seexanaa tartiibkiis buuq la'aan jawi degan habeenkii saasuu ku waardiyan habeenkii 3 jeer 4 jeer 5 jeer uu soo kacaa si meesha wax soo galay haddii libaax uu soo galay haddii dad soo galeen wixii soo gala uu kormeera qof iska jiifaya maahan. waxa kaga sii daran qofka geeljiraha moorada banaankeeda ma seexda moorada gudaheeda u dhexsada meel geedaha mushmushka oo meelaha qoshka uu madax la galaa tartiibkiisa iska saana marka cabsanaya waa lagu istaagaa iyo qarara mar walba waxaa maskaxdiisa waxaa ku boolgareemsan ama uu la socdaa dhawaqa iyo shanqarta geela naftigiisa marka lasoo galo asaaba sheegaya oo ama qaylinaya ama ishaare bixinaya oo lagu fahmi karo in meesha lasoo galay. haddii uu kala fiigo oo kala ordo geelaas waa lasoo galay libaax iyo waxyaaba lamid ah soo galeen. waxaan ku dhacay tusaale ahaan 100 neef ama 20 neef oo geela meeshan daaqaysa qofkan kalena wuxuu leeyahay 20 neef oo geelow asagana leeyahay siduu ku aqoonsan karaa raadka geeliisuu ku aqoonsan karaa. waa cilmi iyo wax ilaahay heybad uu u siiyo qofka geeljiraha maskaxdiisa waa uu ku boolgareemsan yahay. tusaale ahaan hashiisa maanta wuu fiirinaa beruu fiirinaa maskaxdiisa waxay si toos si automatically u save garaynaysaa cabirka iyo cagta iyo waxa la jira cidiyaha iyo waxaas uu ka aqoonsada. kabacdi geeliis haddii geelka lagu dhex daray xitaa meel kasta ay marto wuu aqoonsan karaa raadka geeliis wuu aqoonsan karaa ama 2 3 4 5 10 inta ay yihiin xabad haddaad tusida raadka isku fiiri keela haddii la dhaho kana leeyahay waa cilmi qofka geeljiraha asaga ilaahay uu siiyey waa mina oo asaga minaha gooni ay u tahay waay. marka waxaana keenaya minaha in badan 5 sano 2 sano 10 sano 20 sano ku dhawaad inuu geelan uu la jiray maskaxdiisa uu la qabsaday shaqadiisaba ay shaqo kale is ahayn geelaas in uu la jiro ay tahay taasaa keenaysa in uu horay uu ka aqoonsado. okay asla garana lambar 7 waxaan ka dhigaynaa hadduu ilaahay nafta nagu sima geela markii la guurinayo geela la iskama guuriyo sida saxda ah geela waa loo soo sahmayaa. tusaale ahaan meeshaan uu daaqi jiray biyihii ibaada uu ku haystay biyihii ibaadkii waa ay soo dhammaadeen ama waa ay soo yaraadeen waa in laga aagbadista meeshaan. sidee loo aagbadilina marka waa in hal qof la diraa ugu yaraan 20 kilomitir 30 kilomitir waa in uu soo sahmiyaa iyo ka badan bicnaha 30 kilomitir ka badan waa inuu soo sahmiyaa meel uu roobku ku da'ay daaqsin fiican leh
ammaankeeda uu saxan yahay, maxaa ladahay dhibaato isa ka jirin, libaaxa uusan ku badnayn, god iyo goof oo geela uu ku dhammaayo uusan lahayn, biyo iyo baad wax walba leh inuu soo sahmiyo kabacdi uu soo indhiindheeyo. isla markuu soo indhiindheena intaasoo kilomitir uu kusoo lugeynaa meel fiicanoo kiisa ama iisheeg mooradiis meesha looga samayn lahaa wuu kasoo fikiraa. wax walba wuu soo indhiindheena wuu soo sahmeen si fiican sahan fiican lahoogu keenaa kabacdi geela waa la gurinaa. 30 kilomitir 40 kilomitir ama 50 kilomitir ninka uu soo sahmiyey geela waa la gurinaa. rug aa lagu garaaca isagoo daaqaya uu sii soconaya halkaas oo ninkan uu soo sahmiyey waxaa lugta ku tagaa. hadhows markuu ninkan uu soo sahmay meesha la tago kabacdi wuxuu sameynaa meeshii biyaha lahayd aswaa uu yaqaanaa, meeshii irta iyo nurka fiican uu lahaa waa uu yaqaanaa. wax walba marka okay u yihiin qof minaha deegaankii iyo yaqaanuu noqonaa oo hooshi minaha howl ku culus ninkii ma noqonayso. taasna waxaa waaye waa midda sahminta iyo sida geela loo guuriyo. lambar 8 waxaan ka dhigaynaa cimilada sida uu u qiyaaso qofka geel jira. annaga hadda markaan magaalada joogno waxaa la sameeyaa mina waxaa leeyahay 35 waaye kuleelka magaaladaas. magaaladaas waa 40, magaaladaas waa 20, magaaladaas waa dhowr iyo 10 magaalo aldhaamo. asaga geel jira wuxuu sameynaa meeluu tagaa cimilada uu soo qiyaasa meel cimilada jawi degan oo fiican uu soo qiyaasanaa dhag geeliisa meeshaasuu geysanaa. waxaa waaye qiyaasa jirkiisa iyo dareenkiisa iyo minaha asaga wixii uu dareemo oo minaha uu geelaas asagana uu ku samey. haddii asaga meesha uu meel jawi degan uu u arko oo meel fiican oo cabirkeeda uu saxan u arko meeshaasuu geysana. haddii meeshan ay kulushahayn oo iska dhaafa oo meel kulul geela ma geenay. geela haddii meel kulul la geeyo cudur iyo waxaa balaaye iyo wax badan oo ka qaada oo kuleelka mu fiicno. lambar 9 waxaan ka dhigaynaa qofka geel jiraha waa dhakhtar dhammaystiran waay markii loo fiiriyo dhanka xoolaha. qofkan geel jiraha ah wuxuu fahmi karaa neefka meesha laga haayo ama uu ka xanuunsan yahay. tusaale ahaan haddii uu geela uu minaha in sun iyo wax uu u baahan yahay, haddii uu qoorta uu ka qoloodo oo saas uu leeyahay, haddii dhibaato kale haysato waxaas oo dhan wuu fahmi karaa. magaalada soo aada wuxuu leeyahay geeley intaas u baahan yahay, kaninkaas u baahan yahay, ama wuxuu u baahan yahay waxaas u baahan yahay kuleeyahay. sababta maxay tahay? cilmigaas yaa baray. cilmigaas waxaa baray geeley badan oo isaga saaxiibo laha baray. tusaale ahaan hal cuduraa xaafadda dhan qabsanaya. cudurkan sanadkan waxaa leeyahay waa cudur noocaas hayo okay qalinkaa lagu duugaa. sanadka kale cudur kale imaanaya qalinkaa lagu duuga waa la wada baranaya. ugu yaraan sanad walba cudurka suu imaahay waa iskala qabsanaya. marka haddii marka cudur ka mida uu neefkiisu uu ku dhaco qofkan si automatically wuu fahmi karaa minaha shimbirow ahay uu kuleeyahay waxyaaba oo adi aan fahmi karin kuushe. isla markiina kaniini daawo uu soo qaada cirbado uu soo qaada wuu sameynaya wuu xalinaa neefkiina wuu ka kaca oo asaa digtoornimada asaa iskugu filan. waxaana keenayso khibrad badan iyo intaasoo sano minaha in uu geelo uu ku dhex jiray oo howshiisa uu hayay keenayso iyo cilmi dhagood minaha in dad badan isaga saaxiibiisa oo geeleya in ay minaha sameeyeen cilmi baaris noocaas ah. marka saasa waxay keenaysa marka qofkan dictoor buuxo inuu noqdo oo neefka geeliisa meesha laga haysto in uu horay uu ka fahmo. lambar 10 waxaan ka dhigaynaa midka u dambeeya oo aan kusoo gabagabayna aan ka dhigaynaa lambar 10. haddii geel jiraha dad qori wata ama tuuga ay gasho oo geeli laga qaato siduu ku xaliya ma dagaalamaa muxuu sameeyaa? isma waalo badanaa sida la yaqaano wuxuu sameeyaa xal uu sameeyaa asaga nafsadiisu badbaadsa. horta wuu ka cararaa luuqyadoo ka galaa kabacdi geeliisa waa la wataa ama 2 neef ama 3 neef ama 5 neef wixii laga wato waa laga wadanaa. kabacdi isma waalayo raadkiisuu raaca. raadkaas meel alle meeshuu tago waa la tagaa asagoo minaha uusan si toosa minaha qofkii isu muujinayn oo ku dagabana waa dhudhuumanaa. kabacdi wuxuu ogaanaa geela halka loo waday qabiilka watay inta imisa qofaa wadatay waxaas oo dhan ogaana. kabacdi wegelinu sameynaa familkiisii reerkiisii dariskiisu wacaa waa uu sheegaa wuxuu leeyahay geeli waa la iga dhacay niman noocaas oo qabiilkaas oo tolkaas oo 3 qof 4 qof oo noocaasa geeli iga dhaceen meeshaasaa joogaa hal isoo gaaro. badanaa marka waxay sameeyaan in labadii qabiil in nabadoonadu ay iskugu imaadaan geeli wada hadal iyo waan lagu soo celiyo. way dhacdaa in dagaal iyo qararac la geliyo oo iyagana geel kale meel kale daaqaya oo tolka ama qabiil kale uu leeyahay iyagana inay soo dhacaan oo ay soo wataan
marmarka qaar taasna waa ay dhacdaa laakiin badanaa sida ay u badan yihiin geelida ay ku xaliyaan markii laga dhaca geela in wadahadal iyo waanwaan ay galaan labada qabiil nabadoonada ay isku imaadaan wadahadal iyo barnaamijyadaas in lagu xaliyo ay u badan tahay marmarka qaarkiina waa la isku dili karaa oo waa ay jirtaa in geel dad ay soo dhaceen kuwo kalan geel ay soo dhaceen xabad ay ka dhacday oo raggii naftirkood la dilay oo sidaas binaha colaad iyo qabiil uu ku bilowdo marmarka qaarkood waa ay dhacdaa laakiin waxaa u badan in waanwaan iyo nabadoonnimo iyo waxaas in lagu dhameeyo ay u badan tahay qodobkaas tobanaada u dambeeyey hadduu ilaahna gaarsiiyo waxyaabo kale ayaa kusoo xigo maxaa farqiga u dhexeeya ninka geela raaca iyo ninka lo-da raaca iyo ninka ariga raaco waxyaabo badan oo musalsal aan soo gelin doonaa nolosha miyiga midka baadiyaha ayu nooc soomaalida waxay ku nooshahay dhoon soo gudbin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midka aad jeceshahay qaybta hoose commentiga kusoo qor oo baarti two in lagu soo xejiyo aad jeceshahay haddii ariga uu yahay haddii uu lo-da yahay haddii bajaarleyda tahay gaadileyda wadaaleyda beeraleyda malaaleyda ayu nooc waxaad jeceshahay qaybta hoose kusoo qor intaas mid ka mid ah aan kusoo xejin doona hadduu ilaa nafsi nugna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay master kalimatani ciao ciao كلمتان كلمتان كلمتان